wasiirka maaliyadda dowladda Puntland Cabdullaahi Sheekh Axmed oo soo gaaray magaalada Qardho ayaa kulamo la qaatay maamulka gobolka Kandegmada. Kulankan ayaa ahaa mid looga hadlayay guud ahaan xaaladda gobolka ayna isku baranayeen wasiirka iyo maamulka gobolka. Duqa degmada Qardho ayaa wasiirka ku soo dhaweeyay magaalada Qardho kana hadlay xaaladda magaalada Qardho. xaaladda hadda fiican tahay xag amni iyo xag kalaba waxyaalaha ka dhacay wadanka aan la midnay maahay sida kale waa fiicannahay xaaladda hadda ugu daran waxa weeye xagga roob la'aanta insha Allah iyadana waxaan rajaynaynaa in si dhaqso Ilaahay noogu keeno roob. Barasaabka gobolka Karkaar ayaa isna dhankiisa ka hadlay xaaladda gobolka Karkaar. xaaladda guud ahaan gobolka iyaduna sidoo kale weeye wax dhiba oo hadda inta bisha tan aan ku jiro oo weyn ma jiraan way iska jiraan waxyaalo soo noqnoqda oo aanu qabiil ku salaysan way iska jiraan waa jirtaa hase yeeshee inta badan waxgaradka oo isimada iyo cuqaasha ay u horeeyaan iyo qaybaha dawladda ee kala duwan dadaal dheer bay wax u galeen wax kasto dhaca siday u xalin lahaayeen ama sidii loo yareyn lahaa waxgaradku waxay ku tala galaan inay yareeyaan hadday yar tahayna waa la baabi'iyaa marka guud ahaan gobolka Karkaar waxaa ka go'an sida isugu xirmi lahaayeen la isuguna xirmi lahaa degmooyinka uu gobolka ka kooban yahay iyo bulshada gobolka ka kooban yahay. Wasiirka maaliyadda Puntland ayaa ugu dambeyntii ka hadlay kulanka. waa horta inaan isbarano waa rabay oo shirkan muhiimadiisu aniga ii ahayd oo aynu si rasmi ah u kulanno way soo aragnay way soo salaanay way soo wacnay kulli way isnaqiin laakiin si rasmi ah inaan u kulanno oo isbarano dardaaranno ballanana way ujeedadu kadibna aan kala war qaadano aad baad ugu mahadsantihiin warbixinadiinii ku imaan lahayd iyo gobolkii oo isku mar ay noqotay ilaa heer hogay degmada iyo isbedelkaasi hadee waa isbedelku waa inuu faa'iido keenaa waa inuu carcar keenaayo isla markiiba la iskaashadaana runtii waa meelihii siyaasadda degmadii iyo gobolkii hay'adihii u sareeyay isbedelay hay'adihii kalena de inaad isku soo xirtaan oo isduwayaal iyo cid walba iyo heer degmo iyo heer gobolba. Kulankan kadib wasiirka iyo mas'uuliyiintii kale ayaa booqday xarumaha dawladda ee magaalada Qardho sida aqalka madaxtooyada, saldhigga ciidanka booliska, xarunta gobolka Karkaar. Wasiirka ayaa intaasi kadib u sii kicitimay dhankaas iyo magaalada Boosaaso. Maxamuud Yuusuf Caamir, Somali Channel, Qardho.